Ha Long Bay oo ku taalla waqooyiga Vietnam waa mid ka mid ah mucjisooyinka dabiiciga ah ee dunida, waxaana la aqoonsaday oo lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO sanadkii 1994. Goobtan dabiiciga ah waxa ay caan ku tahay buuraha Kars oo ku dhex yaalla biyaha cagaaran ee badda, kuwaas oo abuura muuqaal xiiso leh oo soo jiidanaya dalxiisayaal badan oo ka kala yimaada dunida. Dhulka Ha Long Bay waxa uu ka samaysmay hab dhismeedka Kars oo ah qaab dhismeed dhagxaan oo ay sababeen falcelinada kiimikada iyo dhul gariirka. Buurahan Kars waxa ay ka dhasheen biyo qaadashada dhagxaan calcium carbonate ah oo muddo aad u dheer ku burburay falcelinada biyaha iyo aasidyada. Tani waxay dhacday kumanaan sano iyada oo ay biyaha roobka iyo kuwa badda ay sababeen in dhagxaantaasi ku samaysmaan qaabab gaar ah oo kala duwan oo u muuqda kuwo ka dhex baxay biyaha. Ha Long Bay waxaa ku yaalla ku dhawaad 2,000 oo jasiiradood iyo buuro Kars ah, kuwaas oo dhammaantood leh taariikh gaar ah iyo qaabab dabiici ah oo lagu qariyay geedo dhir badan oo aan si fudud loo arki karin. Muuqaalkani waxa uu soo bandhigayaa isku dhafka biyaha quruxda badan, buuraha dhaadheer, iyo hawada nadiifka ah ee ku saabsan badda. Waa meel aad u xiiso badan oo ay dadku u yimaadaan si ay u arkaan muuqaalkan dabiiciga ah ee cajiibka ah. Isbeddeladan geophysical ee ay sameeyeen biyaha iyo dabaylaha ayaa dhulka u saameeyay si cajiib ah, iyada oo buuraha Kars ay noqdeen kuwo dad badan oo dalxiisayaal ah soo jiita. Tufaaxyada iyo godadku waa qayb kale oo ka mid ah qaababka dabiiciga ah ee meeshan laga heli karo. Qaababkaas dhagxaanta iyo kuwa kale ee la yaabka leh waxa ay meeshu siiyaan muuqaalka ay maantu leedahay, waana mid ka mid ah goobaha ugu cajiibsan ee dalxiiska Vietnam. Waxaa booqda dalxiisayaal badan oo ka kala yimaada daafaha dunida, waxayna caan ku tahay socodka doomaha ee lagu dhex marayo biyaha quruxda badan iyadoo lagu dhex soconayo buuraha Kars. Doonyahaasi waxa ay dadku u oggolaadaan in ay si dhow u arkaan jasiiradaha, godadka dhagxaanta, iyo jasiiradaha yaryar oo ay ku ag yaallaan geedo qurux badan iyo dhagxaan gaar ah. Raacitaanka doomaha ayaa ah habka ugu fiican ee lagu arki karo muuqaalka dabiiciga ah iyo xasilloonida biyaha ee Ha Long Bay. Dalxiisayaashu waxa ay sidoo kale booqdaan godadka tufaaxyada ee biyaha hoostooda ku yaalla, kuwaas oo sameeya godad dhuuban oo looga gudbo gudaha dhagxaanta. Godka ugu caansan waa Strawberry Cave oo leh tufaaxyo waaweyn iyo qolal badan oo dhagxaan ah oo ka samaysmay gudaha. Waxa kale oo jira meelo badan oo loo dalxiis tago oo ay ka mid yihiin jasiiradaha yaryar ee biyaha ka dhex muuqda sida Ti Top Island oo leh xeebo qurux badan oo lagu nasto iyo buuro la kori karo. Waxaana jira doomo laga kireeyo dalxiisayaasha oo u fududaynaya in ay maraan biyaha una dhowaan karaan jasiiradaha kale. Doomahani waxa ay keenaan waayo-aragnimo gaar ah oo lagu arko muuqaalka cajiibka ah ee buuraha iyo biyaha isku dhex jira. Xeebaha quruxda badan ee ku yaal jasiiradda Ha Long Bay ayaa dalxiisayaasha siiya fursad ay ku daawan karaan biyaha diirran ee badda. Dalxiisayaasha qaar waxa ay doortaan in ay biyaha dhex maraan iyaga oo isticmaalaya kayak si ay si dhow ugu arkaan jasiiradaha yaryar iyo dhagxaanta. Jasiiradaha qaar waxa ay dalxiisayaashu siinayaan fursad ay buuraha yaryar ku fuulaan, kuwaas oo leh aragti ballaaran oo laga arki karo bayga oo dhan. Micnaha jasiiradaha oo dhan waxaa jira godad badan oo dabiici ah oo laga booqdo Ha Long Bay, kuwaas oo lagu dhex arki karo qaababka dhagxaanta ee gudaha buuraha Kars ku dhex yaalla. Godadkaasi waa cajiib marka gudaha loo galo oo laga arko muuqaalkooda dhagxaantu ay sameeyeen.
Inkasta oo Halong Bay ay caan ku tahay quruxdeeda dabiiciga ah, waxay sidoo kale leedahay muhiimad taariikheed iyo dhaqan. Magaca Halong macnihiisu waa hoos u dhaca masaska, waxaana jira sheekooyin dhaqameed oo ay dadka deegaanka ku sheegeen goobtan oo xiriir la leh masaska halyeeye hore oo reer Vietnam ah. Waxyaabaha dhaqanka ee laga helo Halong Bay ayaa ku daraya soo jiidashada goobtan, iyadoo laga helo astaamo muujinaya hal-abuurka qadiimiga ah ee dadka halkaas ku noolaa. Dalxiisayaashu waxa ay fursad u helaan in ay bartaan taariikhda dhulkan iyo dhaqanka deegaanka. Halong Bay waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee caalamka oo bixiya waayo-aragnimo dabiici ah oo cajiib ah. Buuraha Kars quruxda badan, biyaha cadcad, iyo hawlaha xiisaha leh ee halkaas laga qaban karo waxa ay ku siinayaan waayo-aragnimo aan la ilaawi karin. Ma ahan oo kaliya goob loogu dalxiis tago muuqaalkeeda dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waa goob ay dadku ku bartaan taariikhda iyo dhaqanka dadka deegaanka. Halong Bay waa meel mudan in la booqdo oo la arko marka ay fursad timaado. Godadka dabiiciga ah ee Halong Bay waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ay dalxiisayaashu aad u soo jiita marka ay booqdaan bartan dabiiciga ah ee cajiibka ah. Godadkan ayaa si gaar ah u samaysmay kumanaan sano ka hor oo falcelinno dabiici ah oo u sameeyay roobabka iyo dabaylaha, taas oo ka dhigtay mid leh muuqaal xiiso leh oo dalxiisayaashu aad u soo jiita. Mid ka mid ah godadkan waa Surprise Cave, kaas oo ah godka ugu caansan ee Halong Bay. Surprise Cave waxaa laga helaa jasiiradda Bo Ho oo ku taalla Halong Bay, wuxuuna leeyahay qolal waaweyn oo gudaha dhagaxa ah. Godkani waxaa la helay 1901dii, wuxuuna si weyn uga dhex muuqdaa muuqaalada dabiiciga ah ee Halong Bay. Godkani waa mid aad u weyn oo leh 2 qol oo waaweyn. Qolka ugu horeeya waa mid ballaaran oo leh saqaf aad u sarreeya, halka qolka labaad uu ka sii weyn yahay kuna yaallo dusha sare. Gudaha godka waxaa laga helaa tufaaxyo iyo tufaaxyo kale ee ka soo dhacaya saqafka, kuwaas oo samaysma marka biyaha cusbada leh dhagaxa ay galaan, kadibna ay qalalaan oo u samaysmaan qaabab aad u qurux badan. Dalxiisayaashu marka ay gudaha u galaan waxa ay ka helaan godkan muuqaallo soo jiidasho leh oo ay aad ula cajiibaan. Socodka gudaha dhagxaanta, iyadoo mararka qaar qorraxdu si qurux badan ay ugu dhacdo gudaha godka, taasoo abuuraysa iftiin dabiici ah oo farshaxan leh. Qaababka dhagxaanta ee gudaha godkan ayaa aad loola yaabaa, iyadoo dhagxaanta qaarkood ay u samaysan yihiin qaabab u eg xayawaanno kala duwan sida masaska, kalluunka, iyo duurjoogta. Qaababka tufaaxyadana waxa ay ku samaysmeen sababo la xiriira muddo dheer oo biyaha roobka ah ay ku soo socdeen dhagxaantan, iyaga oo dhisay dhagxaan sii kordhaya oo hoos u dhigaya saqafka ama ka soo baxaya dhulka. Godkan waxa uu leeyahay meel aad u qoto dheer oo qiyaastii gaaraysa 30 mitir, halka dhererka guudna uu yahay 500 oo mitir oo ballac ah. Waxaa ka muuqda dhagxaanta biyaha hoostiisa ku jiraan muuqaallo aad u qurux badan. Dalxiisayaasha ayaa lagu hoggaamiyaa socdaal gudaha godka ah, iyaga oo maraya waddooyinka dhagxaanta dhexdooda ah. Qolka labaad ee godka, oo la yiraahdo Grand Hall, ayaa isagana caan ku ah muuqaalkiisa waaweyn iyo qaababka tufaaxyadu ay u samaysmeen. Waxaa jira nalal lagu rakibay gudaha godka, kuwaas oo iftiiminaya quruxda dabiiciga ah iyo qaababka tufaaxyada. Dalxiisayaashu waxa ay ka heli karaan fursad ay ku bartaan dhagxaanta kala duwan iyaga oo ku dhex soconaya gudaha godka, halka qaarkoodna ay si gaar ah ugu helaan qabowga
iyo farshaxanka dabiiciga ah ee godkan laga helo. Godadka kale ee Halong Bay ku yaalla ayaa sidoo kale leh muuqaallo dabiici ah oo la yaab leh, kuwaas oo isugu jira tufaaxyada iyo godadka waaweyn oo lagu daawan karo socdaalka dhulka hoostiisa ah. Godkan waa mid ka mid ah kuwa ugu cajiibsan ee lagu xasuusto quruxda dhagxaanta iyo qaababka dabiiciga ah oo ay dhagxaantan u samaysmeen, waana goob dabiici ah Halong Bay oo ay dalxiisayaashu aad ugu helaan.